madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo taliyaha hay'adda nabadgelyada Soomaaliya ayaa kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Kulankan oo ahaa mid albaabada ay u xiran yihiin ayaa waxa uu u dhaxeeyay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Faad Yaasiin Xaaji Daahir. Kulankan ayaa waxa uu ahaa mid looga arrinsanayay waxa laga yeelayo xilka qaadista lagu sameeyay taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya kadib warqad ka soo baxday ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo xilka looga xayuubiyay. Kulankan oo ahaa mid saacado badan qaatay ayaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya waxay isla garteen in si cad looga hor yimaado go'aankii uu qaatay ra'iisul wasaare Roble ee ku aadanaa xilka qaadista, maadaama ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu u cuskanayay in jawaab sax laga waayay taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo ku aadan kiiska Ikraan Tahliil iyo halka ay ku dambayso. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo warqadda ra'iisul wasaaraha kadib soo saaray isna warqad uu kaga soo horjeeday xilka qaadista lagu sameeyay taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa xilligan qaatay go'aan adag oo ku aadan in marnaba uusan ka laaban warqadda uu soo saaray ka madaxweyne ahaan, waxaana xilligan si weyn isku haya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo madaxweynaha oo isku dhinaca. Dadka agdhow madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa noo xaqiijiyay in madaxweynaha uu wado qorshayaal isku keenay ra'iisul wasaare Roble iyo taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, inkastoo ra'iisul wasaare Roble uu si adag kaga diiday in la iskugu yimaado kulan oo looga hadlo arrintaas. Ra'iisul wasaare Roble ayaa la xaqiijiyay inuu ku adkeysanayo in xilka qaadistaas ay tahay mid wada sharci loo maray isla markaana ra'iisul wasaaruhu go'aankiisa uusan ka noqon doonin. Talaabadan ayaa waxay tahay mid si weyn iskaga hor keentay madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Roble oo ku aadan xilka qaadista lagu sameeyay taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. Taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo ayaa saaxiibo dhow ah isla markaana ku mideysnaa siyaasadda intii uu talada dalka hayay madaxweynaha, waxaana xilligan jirta qorshayaal ay kaga hortagayaan tallaabadaas oo ah in Faad marnaba uusan ka bixin booska uu joogo oo ah taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. Inkastoo aan la ogeyn sida qorshahan ugu cuntami doono ra'iisul wasaare Roble oo ah shakhsiga xilka ka qaaday taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, waana xiisadda Muqdisho ka taagan waqtigan oo ah in laba garab ay u kala noqdeen ra'iisul wasaare Roble iyo sidoo kale madaxweyne Farmaajo. Kulamada iska soo horjeeda ee ka socda madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxay yihiin kuwo mid walba uu ku doonayo in qorshihiisa uu ku meel mariyo. Madaxweynaha Soomaaliya ayaana waxa uu danaynayaa in arrintiisa ay meel marto oo ah in laga laabto xilka qaadista, halka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu aad ugu dadaalay in xilka qaadistii uu sameeyay ay noqoto mid sax ah oo sharciga loo maray. Lama saadaalin kara halka ay ku dambeynayso xiisadan u dhaxaysa madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo taliyaha nabadgelyada oo isku dhinaca iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Roble oo dhinaciisa ay taagan yihiin madax goboleedyada iyo mucaaradka.